أنت حكت ما أذيك سينايا تفضل سودو كبرداس مؤامرات هذا سيدي أبلابتي إلى أودماتي وحي أهيد وحي شقاء دونتي حفيز رئيس الوزراء محمد حسين روبلي كبردا مركي شقاء حفيز دونتي ماشي أي سوغيس إن شقاء الله سيو بعد مؤامرات أجنبية كشقيني ربي دلك إني خلخل قليان وحي أو استعمالين كبردا نفط هذا خطر القليو نورش هذا خطر القليو مسؤولية كوان قفك قاضي رئيس الوزراء محمد حسين روبلي gabadha maalinta gaariga lagu soo qaadayo waxa loo ballanbiyay wasiir ku-xigeenka warfaafinta alcadaala oo ka xeeyo ku yiri ra'iisul wasaaraha shaqo ku siinayo maalmahaas ku noqnoqota xafiiska ra'iisul wasaaraha shaqo lagu siinayo lagu yiri ayadana shaqo raadis ahayd mar waxay ka fikirtay guddiga doorashada inay oo Hirshabeelle inay gasho mar waxay ka fikirtay inay xildhibaan Hirshabeelle noqoto haddana way iska daysay markii dambe xafiiska ra'iisul wasaaraha tir shaqo u doono sidii wax u dhaceen تفاصيل انت هذا بدل مرة بهدي نقرأ لكن انت نكون شيء كره حواي كوداس جاري لو قاضي نين اللي هذا حلبانة ولا إذا ما هاد صلاة وهذا رد فعل كيس مركل عن فرينا أو سؤالك لو كفرينا بل لا كل شيء أسجع جاري كقاضي جاري بلغ قاضي وحال جي دار السلام حافظ لي هذا حمر كتالة وضد كمجال أول ذن الدقيقين جورج أسأل قاضي وحال مرسي شباب هذا هوسه meel jilib u dhow baa la geeyay halkaas aan lagu dilay in la yiraahdo mahad karatay oo madaxda shabaabka kamid ah operation ka fuliyay oo ay xiriir dhow leeyihiin mahad salaad ra'iisul wasaaruhuna aweer buu ahaa uu ka warqabay dhibaatadaas in loo geysanayana uu ka warqabay aakhiro ay adduun qofka gabadhaas la weydiinayo waa ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble farsamada lagu fuliyayna alcadaala iska lahaa gacanta fulisayna mahad salaad waaye cid dishayna waa al-shabaab